American warahmatullahi wabarakatuh halka waxaan ka hadlay waxa dhagala noo isdagaysaashada qiimo qaylo waxaan toos ugu xidhanay dadka mudaharaadka Ali Sultan ma maqlaysaa waan ku maqlayaa meeshii baan joognaa meeshii mudaharaadka joognaa haye sidee wax u socdaan bal wax weeyaan dhagala noo isinay sidii xaalada ahayd toos wixii socda qaylada iyo dadka aad arkaysiin madaxweyne halku marayo warbixin naga sii bal والله ودعيسا أستاذ قيلات مغلسين ومعناها مظاهرات بالسمين أيها ولقوا جرات بهاشو تدخلوا بديهن سيدي على النواهب على السلطان محمد وانكو سلامة يا كأنفرقة إيو واحد كوان ليس في الصومالي تانا هي لوبن بليس مركة وحن دونا يا انت تتكلمتين انت قلتين meeshaad joogtiin hotelkaad joogtiin magaciisa toos bala igu sheega afaan fariya Soomaali السلام عليكم عفوا اليوم حاسا كنا كيسين كاتارجنا حياته سلافرنانو مينيابوليسي أكل كادو منقومريني Somali tani عفر تاني عرب تاني منقومر أكل كوبري أكل كاس سلما إسماعيل عمر قال لي الدرس نام الكتبة هي اللي سلماي ننسى كنا ما فاروق الدلا ويسا شوجمات ما تفرق انت إيانا ما أكل كان النموي وسا إذا كانت أرجعناها أكل يعني ثم حواشت الكادو كاسولينه أو أكل من قمرينه وسا نمبر كسلحة بلوكمو يمريان ولا يعني سلان عبرت كوي رادنا الصومالي كما كورن دونا ماشي مظاهرات كيف جوجنا حياة هوتيل داونتاون مينيابوليس ويان مدحوينه قدوه كجرا استغي تدكيسنا قدوه بكجران سياد مغرسي مظاهرات باكد عيا إلى سطح بغر قفة ماشا جوغا تدكي وبديهين ريد جبوتين الصومالي عفور بيو عرب ماشا والسكوي مدي تدكنا حتى دوس وندي بدونا دي حج عمر waayahay waxa weeyaan dadka meesha jooga anfar iyo Soomaali iyo Arab waran joognaa baa tiri marka waxaad ii dhiibtaa wixii ku dhow marka maxaad ku tala gasheen madaxweyne ma la ragteen wali meesha intee wadu jirtaan waa ku dhownahay laakiin isagii maxaa gudihiigu ku jira hotelkii buu ku jira dadkii buu macnaha baashi buu sameeyay laakiin annakii hotelka albaabka agtiisa ku jirnaa soo dadkii oo dhan albaabka agtiisa hotelka yalla meesha baa la joogaa sidee waa lagu dhow yahay baa leeyahay Xaji Cumar waayahay marka waxaad u malaynaysaa inaad hayladiina inuu maqlayaad u malaynaysaa waa aad iyo aad laana waa dadkii annaka maahay dad badan baa maqlaya isagii maahay dad badan baa maqlaya markaas waa qaylo weeyaan dadkii way badan yihiin waa waxa macnaha la arkayna maaha baa leeyahay waayahay waxaad ku dhawaataa qaylada dadka ku dhawow iyo qaylayanay maqashii markaa gabadha iyo gabdha iyo may nagu jiraan iyo wiilal waxaad ii dhiibi kuwa anfarta kuwa carabta iyo kuwa Soomaalida intaba kolomidii dhiib هذا الحاجي بكون يا يو اس سنت مدحد halkan Minneapolis joogay ya ku dhibaya way السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله آذن waa ku maqlayaa si fiican آذن waxaan galan wiis waxa halka hawada kala xiriiraysa qof marka waxaan inaan ogaado waxaad samaynaysiin iyo siday wax niigu socdaan bal noo waran iyo santana halka abaabulka waxaad ka wadiin والله يعني ومقعد وآذن حاشي من يابلس فاندقنا وحن كجرانيقا يا سعيد بلا يا علي السلطان يا علي الشحن وحنا يا فرتينين هالكن سوقا من قابسي دلير بدلو ريد جبوتي وديد ماركتي كليجي تليه جيل ونوغتي من دي مريكا كنان كستا ومدي رير من سودا واريا قايلة مقليا مركا إلا سدح بقول بانكرو دافني marka waxaan caawa hotelkan uu ku lacagtii umada Rejibuuti ay ka gaajoonayay buu isaguna halkan maaragtay ku qarash gareynaya waxa la ii sheegay in lacag 120,000 US dollar oo hotelka caawa iyo baadiga uu ku dhigayo week u dambeeyay marka intaasaan ka hadlaynaa oo umada Rejibuutina gaajahaysa isna adduunyadu ku tabatay iyo ku tumanaya marka maxaad ka socotaa shirka imika leeyahay heshiis iyo santi iyo madaxweynaha heshiis baa u socdaa laga yahay maxaad ka socotaa
والله تاسي وسوق المداحدة ماركتي معارض الرئيس جيبوتي أنا كوحنا دد سيديزن قالش مريكنا كان تجينا هاي ومد الرئيس جيبوتي دبعتها هاي سوما كان لنا وحي ودا ولا هذا لأنه كان ده وحكار نجرايد المجرو الشيكة ماركتي كتركتين ونو ولا هذا الباص هذا قال لنا اللي هي صدم سنوات بمد الرئيس جيبوتي سياسة عنصو وضية بين تاسي إن النبض ده عيسو ووحكي عن مد الرئيس جيبوتي dhammaantood nabad way rabaan weli waxaan aragnay maahin iyo wax isbedela iyo wax maaragtay qoritaan oo aan aragnay ma jiro waa war la yiri marka anagu maanta halkan noogu yimiday fursad bay noo tahay inaan maaragtay tusno maaragtay inaan dadka reer Djibouti ummadda reer Djibouti daba joogno mar walba marka waxa dadka halka aad ku joogtiin garin ma isku wada waxaad tihiin ma waxaad maarad baa wada tihiin mise qayb maxaafidan igu jirta والله ذكر عاون كان جوجي نوع والبويلين معارض ويلين ضد محافظة ماركتي أو يا بنوع من يابلس ويمدي دل قبل كان منيسورا ولا عجن تلا يبغى خرج قرينا يقعدوا يجري ضد حنا لجوج عاون ماركتي لما ويكور كجري جديد قبل قابدي سو مركي وقاعدين أي وحي صوب بحنا يا أركان ماركتي العقل قعيارية تهاي عراضي وكسب حنا لجوجا markaasi cid walba ay joogtaa maaragtay dad badan cadaan baa nagu jira cid walba dictatorship maaragtay adduunyada dhinac oo dhibaatada ummadda uu ku hayo markii aan tusnay financial banooyid Mareykan oo waydo English ku hadlay ma ku garab joogaa ma ii dhibi kartaa waan isku dayaa Ingiriis qof ku hadlay inaan ku dhibo hadduu maaragtay yarsigiya su'aashaada ha waayay ama afka waan ku dhibi afartan waan ku dhibi this is what's your name? Matt is here with me. Matt Bailajoga, one in American. You're from Minnesota? Yeah, well, he's from Minnesota, and Matt, and he's here to support us. Oh, and he knows a lot. He can tell you. Okay. Yeah, hello? Hello, this is the guy Luis radio. And what's going on there? Can you please explain it to me? Well, what's going on is the president of Djibouti is in Minnesota, and he has a very bad track record with human rights violations and basically lining his pockets with the people's money while they're starving. And the opposition group here, the USN, is protesting. How do you vote? And I'm calling from Canada, Toronto. This is radio. It's independent radio. I'm not of the session or either President Islam or supporter. I'm immediate. I just want to know what's going on there, why he come there, what the president is doing there. So basically, it is a protest against Djibouti's dictatorial leader, EOG. They're protesting EOG. EOG is here in Minnesota, in Minneapolis, and the FR in Minnesota do not want them here because the United States is supporting EOG, and he has been in power for 37 years, and the United States just shouldn't be supporting dictators. Yes, they say he's a dictator, and he put in the jail the people, and he's only using the money. One American giving $50 million for the base of military America. There's a lot of people don't understand this thing, but Americans should know what's going on in Djibouti Republic. I agree completely. Many people don't know what's going on. Because there is no justice, there is no education, there is no health service, and the $1 million American will go in there. That will be only enjoying the government of Djibouti leaders. Yeah. Okay, I gotta go though. Okay. Mr. Somebody else. Okay, thank you. Okay, good talking to you. Thank you. السلام عليكم. السلام عليكم وعلى السلطان. على السلطان. دقيقتين كلمة قالوا وعن تصبح لنا. مانيسوتا ماليزيا هوتيلكا مدينة
علي سلطان وأنا كسلام مركلة waxaad dhiibtay waa aad baan u mahadsantahay marka maxaa kaloo halkaas soo daynaysaa iminka ma qof afar iyaan ku dhibay nag afara meesha joogta iyaan ku dhibay afar bay ku hadli doontaa ay afar u macne aan english aan ku hadli su-aasha ku weydiinayay waa gabadha waa afar weyn assalaamu calaykum calaykum salaam halo assalaamu calaykum Oui, salam alaikum. Allô? Ali Sultan? Allô? Allô?